الله سبحانه وتعالى isagoo meel kasta magaciisa inoogu sheegay hadii markaasi aad u sii fiirsato buuraha iyo dhirta waxaad ku arkaysaa kalimatu tawxiidka iyo qaar kamida magacyada Ilaahay oo ku xardhan dhagxanta dusheeda anigoon waligay arag meel uu qaabkani ugu qoran yahay magaca Allah marka laga reebo kitaabka Quraanka iyo meelo kale mooyaane ayaa waxaan dhawaan buurleyda Qacab ee deegaanka Alafweyne gobolka Sanaag ku arkay magaca Allah oo qaan qof qorin balse xarad ama qoraal Ilaahay ku muujiyay geed agagaarkii aan muuqaalada ka duubanayay ka agdhow geedkii markaasi si qoto dheer markan uu eegay waxaan si fiican u fahmay ama si waadax aan u fahmay in qaabka laamaha geedka ay u baxeen uu yahay magaca Allah subhanahu wa ta'ala wax yar intaan socon kadib waxaan dhadhaab hortayda oo isla buurta dusheeda halkii aan lugeynayay ku arkay ama bayga soo horbaxay markaliya magaca Allah oo isagu si toos ah ugu qoran dhagax dushi Allah subhanahu wa ta'ala magacyadiisa kala doorsoon ama kala duwan ee quruxda badan qaarkood waxa uu ku qoraa bini aadamka jirkiisa midhaha kala duwan xoolaha iyo sidoo kale meelo kale oo tiro badan oo markaad ku aragto ku mucjiso gelinaya waa Cabdiraxmaan Ismaaciil Saciid telefishinka madaxa bannaan ee Bulsho TV Alafweyn.